Bismillahirrahmanirrahiim waxaan oo wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta Naafic Show. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa markii ugu horeysay cad u sheegay in la joogo waqtigii midowga Yurub uu wada hadallo toos ah la yeelan lahaa Ruushka intii uu ku jiray wareysi uu siinayay wargeyska Teges ee ka soo baxa dalka Switzerland. waxa uu xaqiijiyay in hogaamiyayaal Yurub ka tirsan uu la wadaagay fikradan isla markaana loo baahan yahay wada hadallo aysan cid kale dhexdhexaad ka ahayn oo dhab ah oo xaqiijiyay danaha Yurub in lala galo Ruushka iyada oo aan la cadaadinayn Ukraine. intaa waxa uu ku daray in la taliyihiisa arrimaha siyaasadda uu dhawaan booqday Ruushka uu wada hadallo la yeeshay saraakiisha Ruushka inkastoo uu xaqiijiyay booqashadan gudaha Yurub in looga arkay mid waqti hore ah. haddaba maxay tani ka dhigan tahay? marka hore Yurub ayaa daashay dagaalka Ukraine waxa uu keenay culays dhaqaale oo muuqda. tamarta ay hayso Yurub ayaa dhaqaale badan ku kacaya xilligan oo soo dhac weyn ayaa ku yimid warshadaha Yurub. marxaladan ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay nolosha Yurub oo sicir bararku sare maray. isku darka xaaladan ayaa xitaa dhalisay cadaadis siyaasadeed oo gudaha ah. baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo. hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto waxna lagu barto laguna safro adduunka oo dhan. haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifiya oo furan, barashada luqadda Ingiriiska waa furaha kuu horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn. macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow, dhexdhexaad iyo dhammaystir. koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kugu baraya macallimiin xirfad leh iyadoo xoog lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh, qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah, maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer, xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan. haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo ku horseedo ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp ee hoose. haddaba maxay tani ka dhigan tahay? marka hore Yurub ayaa daashay dagaalka Ukraine waxa uu keenay culays dhaqaale oo muuqda. tamarta ay hayso Yurub ayaa dhaqaale badan ku kacaya xilligan oo soo dhac weyn ayaa ku yimid warshadaha Yurub. marxaladan ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay nolosha Yurub oo sicir bararku sare maray. isku darka xaaladan ayaa xitaa dhalisay cadaadis siyaasadeed oo gudaha ah. dalal badan oo Yurub ah ayaa si dadban u fahmay in dagaalka Ukraine uu ku dhammaan doonin guul military oo cad, isla markaana khasaarihiisu uu si toos ah u saameyn doono nolosha muwaadiniintooda. sidaas darteed hadalka Macron waa qirasho ah in wada hadallada Ruushka uu noqday ikhtiyaar lama huraan ah. shirkadaha shidaalka Israa'iil ayaa bilaabay inay shidaal ceyrin ah ka soo dhoofiyaan Venezuela iyada oo lagu sheegay dhoofintan inay Israa'iil si dhaqso leh uga faa'iideysanayso isbeddel ka dhacay dalka kadib markii Mareykanku uu afduubay madaxweynihii ka soo horjeeda Israa'iil ee Nicolas Maduro. talaabadan ayaa bedeshay jihada shidaalka ee Venezuela oo markii hore Shiinaha uu ka faa'iideysan jiray. xilligaana Mareykanka, Spain, Hindiya iyo hadda oo Israa'iil ay noqotay kuwa dhoofinaya shidaalka Venezuela sida ay warisay Bloomberg. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay haddii Iran ay samaysato bam nuclear ah, Turkiga wuxuu ku qasban yahay inuu sameysto nuclear.